السلام عليكم magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed cabdirasaaq maanta waxaan rabnaa halkan idin ku soo bandhigo petition ama codsi aan sameynayno oo aan rabno bulshada Soomaaliyeed oo dhan inay ka qayb qaataan codkoodana ku muujiyaan codsigan muxuu yahay codsigan wuxuu ku saabsan yahay go'aankii ay dhawaan qaateen madaxda Soomaaliyeed oo ay ku qaateen madashii wada tashiga qaranka oo go'aamisay qaabka doorashada 2016 ay u dhici doonto sida aan la wada socono qaabka doorashada ay u dhici doonto kuma salaysna dastuurka maanta inoo yaala ee waxay ahayd go'aan siyaasi ah taasna waxa keenay duruufaha jira dartood waa ilaahay ma haddii go'aan la gaaray horeyna loo socon doono doorashana ay dhici doonto doorashadaas waxaan codsanaynaa inay ku salaysnaato 4 qodob oo kala ah inay tahay mid xaq ah ama fair inay tahay mid loo wada jeedo la wada arki karo ama ah transparent inay tahay mid lagu wada xisaabtami karo oo cidii xadgudub sameeysa lagu la xisaabtami karo ama wax loo yaqaan accountable iyo ugu dambeys inay tahay mid loo dhan yahay oo ah inclusive waa ay ka shaqeeyeen sidii ay u noqon lahayd mid loo dhan yahay waxaana kamid ah qodobada ugu waaweyn oo ay ku gaareen go'aankaas in 135 oday dhaqameed ay soo xulaan ergo gaaraysa 13,750 oo ah ergo doorasho oo wadanka oo dhan ay ka soo xulaan 13,750 kaasna ay soo xulaan 275 xildhibaan sida aan la socono doorashooyinkan waxay u dhici jireen in 275 taas xildhibaanna ay soo doortaan madaxweyne codsiga aan soo gudbinayno haddaba muxuu yahay codsiga aan soo gudbinayno wuxuu yahay in ergada dooranaysa xildhibaanada marka hore aysan ku koobnaanin kaliya qabiilkaas ay noqoto qabaa'ilaadka la isku daray inay wada doortaan xildhibaanadooda midalan waxa ay doorashadu ka dhici doontaa Kismaayo Baydhabo Garowe Cadaado Beledweyne ama Jowhar midkood iyo Xamar in marka numberkaas loo qaybiyo goobahaas oo ay ku soo doortaan xildhibaanadooda waxaan soo jeedinaynaa 135 oday markii ay soo xulaan tirada intaas leeg in ay doortaan 275 oo totalkoodu uu noqdo 14,525 arrinta aan soo jeedinayno waxay tahay in 14,525 qof ay markaas doortaan madaxweynaha dabcan waad garan kartaan marka ay 275 xildhibaan oo annagoo dhan matalaya ay doortaan madaxweynaha iyo markaan annagoo dhan oo 14,525 in ay kala fiican tahay inaan chance u helayno ama fursad u wada helayno inaan doorano madaxweynaha la doortaan uu noqon doono mid runtii Soomaali oo dhan ay soo dooratay goboladoo dhan laga soo doortay xoogan ixtiraamkaasna leh waxaan idin ka codsanaynaa inaad petitionkan ka qayb qaadataan saxiixdaan asxaabtiina la wadaagtaan gaarsiisaan cid walba ay isgaarsiiso si markaas codsigeena uu u noqdo mid xoogan oo wax laga qaban karo waa mahadsantiin